maanta waa maalin weyn oo ku weyn guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaanna shacabka SSC Khaatumo waa maalin ay reer SSC Khaatumo dharaaro badan ay sugayeen ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga saamileyda Soomaaliyeed iyo in shacabka SSC Khaatumo ay qayb ka noqdaan golaha jaangoynta siyaasadda Soomaaliya oo in muddo ah oo 33 sano ka badan ay ka maqnaayeen shirkani madaxweynaha dowlad goboleedka SSC Khaatumo mudane Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye ayaa isagu maanta si rasmi ah u soo celiyay rajadii shacabka SSC Khaatumo iyo ka mid noqoshada maamulka SSC Khaatumo in ay ka mid noqdaan golaha jaangoynta siyaasadda Soomaaliya in maamul goboleedka SSC Khaatumo uu qayb ka noqdo shirka madasha qaran NCC ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyagoona ku tilmaamay in maamulka SSC Khaatumo uu yahay mid Soomaali boos weyn ugu jira go'aanka madaxda dalku ay qaadatay isla markaasna ay ku aqoonsatay maamulka SSC Khaatumo uu yahay guul weyn oo u soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalkeena Soomaaliya Zakariya Wadani warbaahinta Wadani Media Muqdisho